kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba caalamka meel walba aad ka joogtaan iyo waqti wal oo ay idin tahay halka aad nagala socotaan ama aad barnaamijkan xiisaha badan aad ka daawanaysaan waa janalkii ummadda Soomaaliyeed ee Siriicaad ku soo dhawaada mar kale iyo video hor leh waad ku mahadsantihiin la joogina garab muuqashadiina dhiirigelintiina iyo garab istaageena intaba ee fadlan hadii aad channelka ku cusub tahay oo ay tahay markii kugu horeysay aad soo marto ama aad nala kulantaa ama aad soo booqataba waxaan ku leenahay si naxariis badan qalbi wanaagsan ka timid subscribe noo saar kabalelkana furo videogan hadda ka heshay si la garaaw share gareeyo la wadaaga asxaabtaada si asxaab badan ugu soo biirta channelka oo aan u gaarsiino hadafka aan ka leenahay aad baad u mahadsantiin waxaana mar walbaba idin leeyahay guuleysta meel walba caalamka aad ka joogtaan maanta waxaan inoo wada fanaan run ahaantii in badan aan ka weynay saaxada fanka runtii waan jecelnahay fanaaniinta Soomaaliyeed dhammaan in aan ka hadalno xaajaadka ay ku sugan yihiin channelka ayaa waxa uu u sameeysan yahay in aan kor ugu dhigno ama aan kor ugu qaadno fanaaniinteena qaaliga ah sida caalamka ay ugu faanaan fanaaniintoodna anaga kuweena aan ugu faano fanaaniin kaliya ma aha rag walba ama qof walba oo mugi miisaan ku leh Soomaalida dhaxdeeda ama la yimaado wax walba oo wanaag ah waxa inaga go'an in aan anagana wanaagiisa dadka aan u soo bandhigno waayo annaga iyo naga mid yahay annaga iyo naga tirsan yahay waa annaga ayoonan wax naga dhigaya annagana waa inaan isaga wax ka dhignaa waxaan idin hayaa fanaanka Qadar Kayow goorma kugu dambeysay maanta waxa uu wacdaro ka dhigayaa amaba uu gilgilay runtii festival ka dhacayay ama Somali Culture Festival ayuu waxa uu ka dhigay mucjisadii ugu weyneed waxa meesha hareeyay ama uu buuxiyay dad runtii aad iyo aad u jeclaa in ay la kulmaan alla maxay dad badani Janet markaasi ay ku heleen hadaba markii aan taa ku sheego waxa laga yaabaa in aad iga diido oo aad tiraahdo waxaan sheegaysid oo dhan meesha kama ay dhicine maxaad intaan u bunbooninaysaa hadaba waa yahay marqaati ii noqo aflaanta studio ayaa soo dhigay bal daawasho waa sidaad soo aragteen masraxa iyo meesha uu ka heesayay jawigeeda aad ayuu u macaan badnaa waxa la isugu yimid dhalinyaro aad moodo in daadooda la isku soo wada qiyaasay aad iyo aadna u labisnaa runtii Soomaalidana culture-koodi aad bay u jecel yihiin wali hadii ay aad aragtay in ay marmarka qaar in yar oo ay ku jirto oo jinuud ay ku shaqaysanayso waxaad ogaataa inta ugu badan ee Soomaalida runtii ma ahan dad dhaqankooda ka tagayo xitaa hadii ay doonaan dharka ha ka tagaan oo dharkooda nooc kale ha ka dhigtaan laakiin wax dhici kara ma ahan inay dhaqankoodii ay ka tagaan Soomaali waa Soomaali meel walba ay caalamka ka joogtana maanka iyo maskaxda waa ay ku haysaa oo in aysan noqonin cid aysan ahayn iyaga waa ogyihiin laakiin waxaan idin sheegayaa oo maanta run ahaantii aan idin kaga waramaya fanaanka Qadar Kayow gilgilka iyo dhacdooyinka cajiibka ahaa oo ka sameeyay festivalkaasi maxay kula tahay maxaad ka dareentay maxaad leedahay fanaanka Qadar Kayow run ahaantii sida aan ka warhayno maalmahan waxaad moodaaba in uu fanka uu ku sii yaraanayay heeso badan oo u soo baxay markaasina ma ay jirin oo waxa jiray in uu mashquul kala galay fanaanka oo runtii saaxada fanka aad looga waayay bersamaad waxa uu ahaa boqorkii Muqdisho gilgili jiray oo run ahaantii sameyn jiray saameyn aad u weyn dadka qaar waxaad arkaysaa in ay fanaaniinta fanaan walba oo fanaanka kale ay ku dhufanayaan waxa jira fanaaniin aanan shaqo isku lahayn xilligii uu Qadar Kayow magaalada waalayay ama uu haystayna waxa jira isagana fanaan kale oo ka soo barbar dagaalami jiray oo ahaa dayaxdal Nuur runtii labada fanaan marka loo eego waa labada fanaan ee shidi jiray nalka Muqdisho maanta labadooda saaxada aad bay ugu yaraadeen dad badan ayaa waxa ay isku hadal hayeen ama ay sheegi jireen ama ay soo hadal qaadi jireen in uu soo bixitaankii oo soo baxay Sharma Boy oo run ahaantii uu dhumiyay saameynta fanka ay ku lahaayeen labadaasi fanaan laakiin dhabta ayaa waxa ay tahay inaysan mahmiyadooda iyo shaqadooda aysan mid ahayn hadii la eegana ay xataa fanaaniinta sida ay u kala haysaan oo aad u kala duwan yahay qof walba wuxuu yahay lama xaqirayo fanaaniintana waa fanaaniin Soomaaliyeed oo runtii fanka labadaba ay ku sameeyeen magacyo aad u waaweyn sida aad ka warhaysaan heesahoodii ugu horeeyay oo si jamaca loogu arko waxa la daadhinaysay amaba la qaadayso lamaan kula ahayd
fanaanada maanta fanka aad moodo iyadana inay ka farxalatay ee Sacdiya Siman oo run ahaantii ay dadka ku tirin jireen barisamaadkii in ay tahay fanaanada kaliya ee asturan labadan fanaan wixii ka dambeeyay fanaanka Dayaxdal Nursho waad aragteen dhinacayuu saga baxay fanaanka Qadar Kayowna heesa badan oo wadani ah oo ay dadka jecleysteen iyo kuwa dhiiga ay dadka u hori jireen oo heesta walaalnimada ay kamid tahay ayuu fanaanka soo qaaday laakiin waxa run ah ama xaqiiq ah ama aan la dafiri karin in uu fanka ku yaraaday oo xagga fanka uu aad uga yaraaday oo macnaha ku ka gaabiyay laakiin dad badan maankooda iyo maskaxdooda kama go'in oo waxa uu siiyay heesa badan oo runtii aad u gelgelay oo waxa kamid ah heesta aad iminka soo maqleyseen ee hablaha Soomaaliyeed runtii waa qof gabdhaha Soomaaliyeed runtii heestas marka uu qaado ama uu inta badan waxay soo dhigan jireen TikTok laakiin dadka maanta ayaa waxa ay u bateen ama ay u baqoleen dhinaca in heesaha kulkulul sababtoo ah Qadar Kayowna heesaha uu qaado waxa ay ahayd hees caadi ah fanaanku waa fanaankeenii ma oranayno waa uu ka baxay ama waa uu ka dhacay saaxada fanka laakiin waxa laga yaabaa qof walba bil aadam ah intee in soo martay oo fanaaniin ah oo runtii codkoodii ay aad u jeclaayeen Soomaalida intooda badan laakiin markii dambe hawlo gaar ah isaga mashquulay darteed fankii ku yaraaday oo waxa kamid ah run ahaantii Guuleed Simba waa fanaan aad u cod macaan oo ay dad badan aad u jecel yihiin haddana markii aad aragto in heesaha uu soo qaado waa heesa ka yar heesaha fanaaniinta kale ay soo qaadaan oo waayo Janiska inuu u heli waayo ayaa laga yaabaa waxa macquul ah Guuleed Simba oo kale inuu dhowr sano ama marka uu xoogaa joogo hal mar hees ku soo turto Qadar Kayowna booskaasi ayuu raacay ma jirto waxyaabaha dadka ay ka hadlayaan ama ay maskaxda ay ku hayaan oo ah in uu Qadar Kayow fankiisa qariyay Sharma Boy waa walaalkii Sharma Boy waa saaxiibkii Sharma Boy waa garabkiisa sababtoo ah labada fanaan uma kala doorsanayno waa laba fanaan oo inagu weyn waa laba fanaan oo Soomaaliyeed waa laba fanaan oo walaalo ah waa fanaaniin iswada leh Soomaali fanaaniinteeda oo dhanna cid kala sooci kartaa ma leh cid kala saari kartaa ma leh cid dhihi kartaa kanana waa sidan ma jirto ee fanaaniinta guud ahaan ayaa waxaan u leenahay hamigiina ka run sheega walaalnimadiina ka run sheega dadnimadiina ka run sheega Qadar Kayow maanta markii aan arkay ama aan ku arkay heestani runtii aad baan ugu farxay waxaan leeyahay mar walba mar qura ma ahan ee mar walba waxaan leeyahay Qadar Kayow waxaan rajaynayaa in saaxada fanka aad mar labaad dib ugu soo laaban doonto magacii maamuuska aad ku leedahay Soomaalida dhexdeeda waxaan rajaynayaa weligiis inuu ahaan doono mid jiri doona aanan abid Soomaali ka go'in qalbigooda heesaha qiimaha badan ee aad u qaadi jirtayna aad mar labaad ku soo xusi doonto aad baad u mahadsantahay fikirkiina waa xor waa idin furaya commentiga oo waxaad ka aaminsantahay waad nala wadaagi doontaa inta fiidiyogani mid la mid ah ka sareeyo ka duwan aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga sii tagayaa fi amaanillahi sarag dambo oo xiiso leh